sida saacadihii dambe ama waqtiyadii u dambeeyay in lagu soo baahiyay in ay gabadh caanka ah dhanka iyo TikTok la afduubtay ama afduub lagu geystay dhankaas iyo hoteelada. waxa maanta aan falaqeyn doonaa arintaas ma beenba ma runba. inta arinta aan gudaha u gelin fadlan daan ugu cusubta waxaan ku dhihi lahaa nagu soo bir oo ka mid noqo bulshada nagu xiran dhanka YouTube aan noqono saaxiibo aad iyo aad iskugu dhow dhanka YouTube-ka. marka haddii aan gudaha galno ama aan guda galno arinta aad iyo aad u soo shaabaxday oo arintaas oo dad caanka ama dhanka TikTok-ga aad iyo aad looga xiiseeyo muuqaaladooda ay ka soo hadleen. marka waxa la dhihi karaa arintan markii kow ama just ahaan bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad u rumaystay in ay gabadhan la afduubtay ama afduub loogu geystay magaalada Muqdisho. laakiin arintan ama gabadhan afduubkeeda waa arin 100% oo been ah oo just ahaan views ahaan ama dhanka TikTok ay dadkii sameeyay ama dadkii arintaas ku dhaqaaqay in ay arintan ay soo baahiyaan. arinta markii xaqiiqada dhabta ah ama waxa jiro waqti xaadirkaas la raadiyay ama just ahaan waqti aad u far badan aan gelinay waxaan soo ogaanay in just ahaan ay tahay wax been ah. laakiin su'aasha la isweydiiyay waxay tahay arintiida la wada ogaaday ama arintii aan ogaanay in ay tahay arintan arin been ah ee baraha bulshada ku soo baahiyeen hadalay dad intaasoo kun ama intaasoo kumanaan kun ku xiran ama dhanka TikTok-gooda ku xiran. maxaa ku kalifi karo in ay arintan oo kale ku dhaqaaqaan ama waxyaabahan oo kale ay baahiyaan ama bulshada ku xiran ay ku baahiyaan mar walba ay hadii just ahaan ma qurux badna hadii xitaa ay dhanka views-kaaga ama wuxuu dhac aad dareento in aad bulshada Soomaaliyeed ama ay bulshada kugu xiran in aad been aad u soo baahiso waana wax aad iyo aad looga qurux badan yahay 100% ani ahaantayda saas leeyahay. laakiin just dad aan laga fahmi karin ama just ahaan dad aan 100% waxyaabaha soo kala loogu baran ama bulshada Soomaaliyeed aan ugu baran ayaa arintan soo baahiyay. dadkii isla markii waxay dhaheen arintan waa arin xaqiiq ah waxaana just ahaan dadkii walwal balaaran ama dadkii gabadhan taageeraha badan u hayay dhankaas iyo TikTok-ga in ay aad iyo aad u walwalaan ama taageerayaasheeda 100% ay u kacaan ama dhan walba ay u raadiyaan. laakiin arintii markii xaqiiqdeeda la ogaaday ama bulsho caan ay ka soo hadleen xitaa dhanka TikTok-ga laga xiiseeyo oo beeniyeen in arintan ay arin ay sax ahayn oo arinta arin been ah ay kahan ay baayeen dadkii bulshada ay ka soo hadlay oo dhanka TikTok iyagana saameyn aad iyo aad u far badan kule. waxaana kamid ah dadkii ka soo hadlay madaxweynaha TikTok-ga ama dadka aad loogu xiiseeyo dhanka TikTok-ga. bal aan isla daawano bal madaxweynaha TikTok-ga waxa laga rabaa inuu hubsado ana waan cararay waxaan aaday meeshii laga raadinaa laga goobayay gabdhiyan soo qiimeeyay ayaga dhanaan soo akhristay habartiina u sheegaysiin